daawadayaal soo dhawaada markale kuna soo dhawaada muuqaal cusub waanigu ah Cusmaan maanta muuqaalkeenan waxaan uga hadli doonaa haddii aad doonaysid inaad YouTube channel cusub bilowdo sanadka 2020 farsamooyin iyo talooyin ku saabsan sidii aad ku bilaabi lahayd walibana uu noqdo channelkaada mid guuleysta runtii social media oo YouTube-ka ku jiro barihi dambe waxaa ku soo badanaya dad Soomaali ah ama bulshooyinka kale ee caalamka doonayaan inay ka sameystaan channel si ay u sii horumariyaan xirfadooda iyo aqligooda intaba balse dadkaas intooda badan kuma wada guuleystaan horumarinta YouTube-ka halkan maanta waxaan kuugu la wadaagi doonaa sidii aad ku bilaabi lahayd YouTube channel cusub kadibna aad ku sii horumarin lahayd YouTube channelkaaga haddaba mid ugu horeysa ee lagaaga baahan yahay inaad ka fikirto inta aadan bilaabin YouTube channel waxay tahay inaad marka hore doorato mowduucii ama topic-ii aad uga hadli lahayd channelkaaga runtii aad ay muhiim u tahay arrintan sababtoo haddii aad YouTube-ka iska soo dhex gasho adigoonan wax fikrad hawadanin waa hubaal inaad ku dhex wareeri doonto kadibna ay imaan doonto inaad halkii ku amiso channelkaagii ugu horreynta aadan samaysanin YouTube channelka fikir waxa aad doonayso inaad uga hadasho channelkaaga qodobka ugu horeeya waa qodobkaas arrinta labaad ee aan halkan kuugula wadaagaya maanta waxay tahay mowduucii aad dooratay ha ka been sheegin maxaan ula jeedaa midaan waxa aad soo gudbinayso si reality ama xaqiiq ah u soo gudbi haddii aad ka been sheegto waxa aad soo gudbinayso waxa laga yaabaa birito inuu ku qabto qof yaqaan waxaabi aad ka hadlaysay kadibna halkaas uu ku dhamaado channelkaagii sababtoo dadku waxay ogaadeen inaad wixii aad sheegi jirtay ay yihiin been marka ka fikir waxaad soo gudbinaysa inay yihiin wax xaqiiq ah oo reality ah midda saddexaad ee aan kugu talinayo inaad YouTube channel cusub bilowdo sanadka 2020 waxay tahay in uu channelkaadu noqdo mid shaqeeya waxaan u jeedaa mid shaqeeya channelkaaga ha ahaado mid active ah oo aad soo dhigto muuqaalo sababtoo dadka hadii ay ka waayaan muuqaalo muddo bila 2 bila 3 bila waxay dareemayaan inay halkan waxba ka soo soconin halkaasna waxa laga yaabaa subscribers yara ama daawadayaasha yara ee aad haysatay inay ka kala tagaan marka ka fikir channelkaaga inuu yahay mid active ah oo aad soo dhigto muuqaalo hadii aadan maalin walba muuqaal soo dhigi karin waxaad sameyn kartaa inaad isbuuci 2 muuqaal 3 muuqaal soo dhigto haddii aad isbuuci 3 muuqaal soo dhigi karin waxaad sameyn kartaa inaad isbuuci 1 muuqaal soo dhigto haddii midaas ku adag tahay waxaad sameyn kartaa inaad labadii isbuuc ba 1 muuqaal soo dhigto arrintan iyadana aad ay muhiim u tahay xasuusnaa channelkaaga waqtin u sameey ama jadwal u sameeyso waqtida aad soo dhigayso muuqaaladaada mid kale halkan kuugu la wadaagaya waxay tahay ku bilow waxa aad haysato runtii arrintan marar badan ayaan arkay dhalinyaro aad far badan oo aniga lafteeda arkay oo idhahay ma haysto qalabkii ma haysto kaamirada ma haysto waxyaabihii ma haysto mic-gii runtii uma baahnid inaad haysto mic ama kaamira waxaad u baahantahay kaliya inaad ku bilowdo waxa aad haysato haddii aadan xitaa laptop haysanin ku bilow mobilkaaga runtii mobilada casriga ee sanadahan socda waa kuwa la tartami kara laptopada qaar yani processorkooda markaa ka fikirin inaadan haysanin mic kaamira studio qurux badan ku bilow waxa aad haysato wax walba iyaga gadaalka imaan doona haddii aad dadaasho tusaale ahaan aniga ayaa iska soo qaadayo waad aragtaa inaanan soo horfadhiisan kaamira mic kaliya aan ku duubo mobilkayga marar qaar iyo laptopka tusaale intaas ayaa kugu filan qaybta koowaad aan halkaas kaga gudubno haatan channelkii waad samaysatay wixii aad haysatay aad ku bilowday mowduuc saxna waad dooratay maxaa sameeyaa marka xiga waxaa jira waxyaabo kale oo aad ku horumarin karto YouTube channelkaaga waan kula wadaagi doonaa ha ka welwelin tan ugu horeysa qaybta labaad kuugula talinaya waxay tahay inaad ku dadaasho inta tabartaada ah quality-ga muuqaaladaada waa mid muuqaalkaaga inuu lahaado tayo xagga codka iyo muuqaalkaba haddii aadan 100% ka dhigi karin waa muhiim inaad ka dhigto 100% content videoga 100% content codka sababtoo dadka ku daawanaya haddii aysan muuqaaladaadii aysan lahayn tayo oo ku jiro shucaac ama waxyaabo kale runtii ma jeclaysanayaan inay biri soo laabtaan ama markaad muuqaal soo dhigto ay isla markiiba daawadaan maxaa yeelay muuqaalkii hore ka daawadeen channelkaaga ma uusan ahayn muuqaal qanciyay ka fikir muuqaalada tayadooda intii tabartaada ah isticmaal markaad muuqaalkaaga export gareynayso ha ahaado KineMaster Power Director ama software-ada kale inaad ku export gareyso high definition aad ay muhiim u tahay qaybta labaad qodobka labaad ee aan kugu la wadaagana isticmaal tags iyo thumbnail waan filayaa dadkii ila socday sanadkii hore inay daawadeen muuqaal ku saabsan thumbnail faa'iideysa tags faa'iideysa iyo wuxuu qabto balse haddii aadan hore ugu baraarugsanin thumbnail iyo tags waxaan kugu talinayaa inaad isticmaasho sababtoo thumbnailka haddii aan ku hormarno thumbnailka wuxuu kuu soo jiidayaa in muuqaalkaagii ama channelkaaga muuqaaladii aad soo dhigtay intuu qof ka arko YouTube-ka gudihiisa soo iska dhex socda oo halkaas thumbnailka intuu ka helo kili gare halkaasna aad ka hesho daawasho marka thumbnailka waa muhiim inaad isticmaasho waqti ku bixisana sameyntiisa oo aad samaysato thumbnail aad u qurux badan oo soo jiidanaya dadka waana sameyntiisa inay waqti badan qaadanayso haddii aad rabto inaad samaysato thumbnail aad u qurux badan oo soo jiidasho leh balse waa muhiim inaad samaysato thumbnail qurux badan haddii aanu maano tagiska wuxuu ka caawinayaa haddii YouTube-ka qof uu tago uu doono inuu wax baaro meeshii inuu ku qoro qoraal
kadibna uu soo bax muuqaalkaaga taagiskana sida taas ayuu ka caawinayaa haddii muuqaalkaaga halkii ka soo muuqdo ama qofku ugu horeeya uu noqdo qofkii waxyaabihii raadinaya wuxuu ku qasbanaanayaa muuqaalku ugu horeeya uu soo baxa inuu kali gareeyo kadibna uu daawado haddii muuqaalkaaga ka helo ama channelkaaga uu ka helana waa qasab inuu ku subscribe gareeyo marka taagis isagana sida taas ayaad u isticmaali kartaa haddii aad rabto si taagis loo isticmaalo iyo thumbnail intaba waxaa jira muuqaalo aan hadda ka hor ka soo diyaariyay oo aan ku faahfaahiyay sida loo isticmaalo sida aad u saari karto channelkaaga waxyaabahaas oo dhan waxaad ka helaysaa description videogan ama comment ugu horeeya ayaan bin idinku dhihi doonaa haddii aad muuqaalkaas weli daawan waxaan kugu talinayaa inaad soo daawato qodobka kale ee halkan kugu la wadaagayo waxay tahay qaybta labaad inaad qurxiso title-ka ama ciwaanka muuqaalkaaga waa qasab muuqaalkii aad soo dhigtay channelkaaga inaad u bixiso magacaas aad u bixinayso ha ahaado magac gaaban yuusan ahaanin magac dheer magacaas gaaban ee aad u bixisana ha ahaado magac soo jiidasho leh haddii aad ciwaankaaga aad ka dhigto ciwaan dheer oo aad u dheer runtii dadkii way ku horeerayaan oo maba fiirinayaan ciwaankaagii sababtoo ciwaankii ayaad aad u dheerisay marka ka fikir ciwaankaaga ha ahaado ciwaan gaaban oo micno leh waxaan kaloo kugu sii darayaa ciwaankaaga mar walba aad qorto ka raacsii sanadka aad haddan joogto tusaale sanadka 2020 ayaa la joogaa markaad ciwaankii gaabnaa qorto gadaal waxaad ka raacsiisaa 2020 runtii arrintan iyadana aad ay muhiim u tahay waan filayaa inaad aragteen aniga lafteeda mar walba ayaan isticmaala marka adigna taas samey si uu channelkaaga ugu hormaro runtii qodobadan aan haatan idin soo sheegay waa qodobo aan anigaan idin hadlaayo aan isticmaalay sanadkii 2018 ilaa haatan aan isticmaalo haddii aad si dhab ugu dhaqantana waxaan hubaa inuu channelkaaga hormari doono waxaase ka horeeya waxyaabaha qaar inaad nafsadaada aaminsiiso tusaale runtii uma baahnid qofku garab siiya oo channelkaaga kuu caawiya si uu kugu koro wax walba waxay ka go'aan adiga iyo dadaalkaaga haddii aadan dadaalin waa hubaal inaadan heli doonin wixii aad u baahneed balse haddii aad dadaashana dadaalkaagii Allah kama dhigaayo mid khasaaray marka qofna waxba ha weydiisanin nafsadaada ku kalsoonow inaad sameey karto waxyaabahan oo aad guul isgaarsiin karto adigoo aanan haysanin wax garab ku siiya shuraad ku siiya kaliyana waa inaad aamintaa nafsadaada iyo inaad sameey karto waxyaabahan cidna ha weydiisanin inay ku sameyso shout out haddaba saaxiibaan waxaan jeclaaday inaan muuqaalkan waana haddii aad si reality u raacdo waxyaabahan ku soo sheegay maanta inuu channelkaaga gaari doono horumar aad u weyn waana ka mahadcelinayaa daawashada daawanaysa muuqaalkan waa aniga Cusmaan oo ku rajeynaya inuu channelkaaga gaaro guul aad u weyn wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh